waxyaabaha buriya soomka oo aad ay muhiim tahay inay dadweynuhu ogaadaan siiba dadka maatida ah dadka adigoo moodaya inay aqoontii leeyihiin sidaada wax badan ba haddana dadku ama iska mashquulsan ama goobaha cilmiga ka fog yihiin nin su'aali soo diro aan eegaya xalayto ismaan lahayn dadku halkaasay gaarsiisan yihiin xagga aqoon yaraanta wuxuu sheekho markaan xaaskayga habeenkii u tago ma intoon anigoo jinaabaysan salaada soo tukadaan kadib maydhanaya mise salaada ka hor baan maydhanaya dee jinaabada inuu ka maydhaa ay waajib taho salaadu had iyo jeer ay aanay ansaxaynin isagoo dee qofku jinaabo leeyahay ama masaajidkaba aanu jinaabo la tegaynin intaa inaynu casharkaa iska wada qaybsannahay baan moodayay laakiin dee dadku halkaasay taagan yihiin hala yaabin marka waxay u baahan tahay in far waaweyn loogu qoro adigu haddaad tahay qof wax garanaya dad halkaa taagan inay jiraan ogow dadka qaarkood baa waxay dhahaan su-aalihii bay kugu su-aalo bilaa macnaa bay sheekh ku weydiinayaan oy waktigii nagaga qaadeen yaa akhi aday bilaa macno kuu tahaye daday halkan u taagan tahay baa jiro oo jinaabada salaada ma lala tegayaa maraya oo ma lagu tukanayaa markaa haddii aad adigu intan garanayso dadka aan garanayn baa muhiima in loo sheego cilmigana waxaa aada ugu sii baahan qofka jaahilka ah haddaynu ku soo dhowaano waxyaabaha lagama maarmaanka waxaa ka mid a tabyiitu niya min alleyl habeenkii qofku inuu soo niyoodo haddaanu niyoon soomkiisii waxbuu ka noqonayaa xadiid saxiixo nasaa-i warinayo nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam man lam yubayit siyaama min alleyl falaa siyaama lah qofku haddii aanu habeenkii soo niyoonin soom uma jiro maalintii waa soomka faralka ah gelinka horaa la niyoon karaa ka sunnaha ah waxaynu sixi lahay niyaduna hadallo la yidhaahdo ma aha ee waa qalbiga anniyatu maxaluha alqalbu oo waa inuu qofkii go-aamiyo un aroorta inuu soomi doono markuu cashaynayo suxuuranayo afurayo intaasaa ku filan salaadda markaad halkan imikaysa soo taagtay dee laguma soo riixin oo turanturo kumaad imanine qasad baad ku timi iyo inaad salaad tukata niyaduna waaba intaaba marka halkan waxaan xusaynaa daliil ma laha nawaytu sooma qadin can adaain fardi fiiladaa dheer ee dad badan ay uba qabaanba haddaanu intaa odhanin inaanu soomkiisii ansaxayn arrinta labaad waxaa shardiya inuu qofku iska daayo wixii soomka ka jabinayo kuwan soo socdaynu sheegi doonaa laga bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa intay qoraxdu dem odhanayso habeenku ilaa uu imanayo arrintaasina waa waajib weeye sidaa aayadda aynu marar badan akhriyayna ay sheegayso uma wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl soomka bilaaba marka waagu dilaaco ilaa gabalku intuu dhacayo soomka wada ayaa ilaahay uu subxaana wa tacaala waxyaabaha burinaya waxaa kow ka ah galmada hadduu qofku xaaskiisa galmo u sameeyo iyada oo ay sooman yihiin labadoodaba wuu ka burayaa inay soo qalleeyaanna waa waajib inay toobad keenaanna waa waajib 2 bilood inay soo soomaanna waa waajib labadoodaba waa lagu leeyahay sida jumhuurtu qabaan hadday labadooduba sooman yihiin waxaa xaaraana inuu soomka sii jabiyo si uu galmo u sameeyo ilaahay wuu ku ogyahay oo wuu ku arkaya ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa waxaad u jeedo wuu ogyahay marka arrintaasina waa dembi weyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii uu la hadlayay wuxuu ku yihi qoor xore haddaad kari weydana 2 bilood oo xidhiidha soon haddaad kari weydana 60 miskiin wax sii marka qoortii imika ma jirta la xoreynayay labada arrimood oo kale un weyn waxyaabaha soomka ka jabinaya waxaa ka mid a manidoo qofku uu iska keeno biyaha taranka oo isagu qasad uu leeyahay uu iskaga keeno noocay doonaysaba ha ahaato ficil uu isagu leeyahay dhinacuu doonayaba ha kaga soo wareego rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu maaragtay taa ka hadlayey waxa uu xusay qofku yatruku dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiidkii bukhaari ee xadiid alqudsiga ahaa waxyaabuu ilaahay qofka ku ammaanay waxaa ka mid a shahwadiisa inuu ilaahay daraaddii uga tegayo marka haddaanu ilaahay daraaddii uga tegin soomkiisii waa kaasoo uu ka jabay
سادرادد قفكا هدو حاسكي لعيارو يسوق مركز سبب ولا هي ساعي كجي مادان قال له بقى لقول له هي سوا مالين كاسو قلاين توبت كيرو هدي قفكو يسحبه وسمين كرادون كشيء لدقني عياري وحا لكن انت بدن من حام حول الحمى يشك ان يقع فيه قفك سيرها كور وريغا خطر وحو ugu sugan inuu ku dhaco baasha nafina waa daciif waxay gaari kartaa meel aan qabaneyn marka albaabku hayno kala xidhnaado halka qolo waliba gaarkeeda u khalaaweynaysa Aisha waxay leedahay kana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa saa'im wa yubashiru wa huwa saa'im walakinahu kana amlakukum li irbi Bukhari Muslim baawri waxaan taa ku jirin waxaan loo yaqaan ixtiraamka duhurkii saxdo qofka biyo taranka ka yimaadaan soomkiisa waxba ma noqonayo waxa burinayo saddexaad cunista iyo cabitaanka qofku isaga oo u kasaya oo aan macnaha la qasbin oo aan isilowsanayn isagana soomkiisa waa jabaya sida ilaahayba aayadda de cunitaanka joojiya waagu markuu bariyo haddii laakiin arrintu ay u dhacday isagoo aan u kasaynin soomkiisa waxba ma noqonayo qofka cuna ee cabba isagoo isilowsan soomkiisa ha dhamaystira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa raashin iyo sharaab siiyo jaanis buu ka faa'iidaystay lagulama xisaabtamayo qofka wixii aanu awoodiisa ka baxsan waxyaabaha qofka soomka ka jabinaya waxaa ka mid ah haddii uu dee biyi sanka iskaga shubo xadiidkii laqiid waxa uu nebigu ku yidhi wabaaliq fi listishaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane biyaha sanka fiif dheh si aad xaggaa sare usoo maydho markaad weysiisanayso laakiin qofku markuu sooman yahay biyaha fiif odhan maayo intaasoo kubuu maydhaya markaa wixii la odhan jiray sankoo biyaha lagu shubo iyo afkiioo lagu shubo inay isku mid yihiinba halkaa laga faa'iidaysanaya oo laga qaadanaya culimadu waxay leeyihiin waxaa la mid ah cunitaankan iyo cabitaankan wixii qofka tamar kordhinaya dhiiggii uu isku shubay glucose uu qaatay dawooyinkii faytamiinka ahaa ee qofka xoojinaya tamartiisa cunitaan un bay xisaabsan yihiin culimada qaarkood waxay ka dhigaan waxyaabaha buriya soomka inuu qofkii istoobo iskuma waafaqsana laakiin waa madhabaha qaarkood markaa inaad iska daysaa fiican oo aanad dhiig iska shubin oo aanad istoobin khuruujan min alkhilaaf adigoo khilaafka ka baxaya waxa soomkii toddobaadoo jebinaya inuu ka soo baxo ruuxii dumarka ahayd dhiiggii dhalmada ama caadada way umushay hooyadii soomanaydba iyadoo laba kalifinoo heerkaa markay taagan tahay inay iska afurto ay tahay ila hooyo uur lahoo u dhowaatay inay dhasho waa la garan karayaa dhibkeedu halkuu gaadhsiisan yahay sharcigu kuma kalifin inay soonto ee waa inay iska cuntay soo qallayso laakiin hadday dhacdaba in dhiiggii dhalmadu uu ka soo baxo ama ilmahaba uu ka soo horeynayay soomkeedii wuu jabayaa inay soontaana ma ansaxayo sidoo kale dhiiggii caadaduna waa la mid daqiiqadii maalinka u dambeeyey shantii mirre u dambeeyey maalinkii ay soo soomanayd ayuu dhiiggii caadadu ka yimi qad badala sawmuha soomkeedii waa jabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu qancinaya wuxuu lahaa alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa nuqsaanu diin waxaa ka mid ah dee ninkii isagiioo soomkii wadunbay gabadhii kolba uu ka jabayaa kolba uu ka jabayaa wakti uu cibaado ku qaadan karaya iyadii ka maqan markaa kolka ay dhiiggaa dhalmadu ka socdo inaanay dhiiggaa dhalmada iyo kaa caadadu inaanay soomaynin oo aanay salaadana tukanayn buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xaydkiina wuxuu noo la mida nifaaskii macnaha waxaa iyaduna la mid oo sideedaad oo soomkii ka jabinaya qofka inuu go-aansado inuu iska afuro niyatulfitr saacaddaa laga bilaabo waabana furay buu dhaanu waa jabinayaaba soomka hala ii soo dhiga qasad uu go-aan buu ku qaatay dee niyadiisii buu joojiyey niyadiisii hore ee soomka ee u soo socotay wuu buriyey waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat camalka waxaa lagu tixgeliyaa inamaa sixatu lacmaali manuudatu binniyaat camalku niyad buu ku ansaxaa niya
niyadii waa kansal gareeyay meeshuu ka saaray soomkiisi waa kaga jabaya soomku waxyaabuhu kaga jabaya waxa kamid ah ilaahay baynu ka magan galnay qofkii inuu gaaloobaba diintu caayay ilaahay buu caayay rasuulku caayay afka intuu kala qaaday buu edab darro weyn oo intaa la egsameeyay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun qad kafart laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay wuxuu uhi ma ilaahay iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisaa ku dheeldheelaysa markaasaa leedihiin waanu iska kaftamaynae umaanaan kasaynin waa gaalowdeen buu ilahay yidhi waxba ha cudurdaaranina waa qof ku jees-jeesay rasuulka iyo ilaahay iyo aayadihiisa ku afka kala qaado caayina maxaad u maraysa wuu ka sii weyn yahay idan waxa riddada la idhaahdo ama islaamkaoo laga noqdo oo laga baxo qowl iyo ficil iyo qalbi mid kastaba ha ahaatee camalka uu qofku ku dhex jiro way kala goysaa ilaahay baa yidhi laa in ashragta la yaxbaطanna camalu haddaad gaalnimo ku dhacdo ciddaad doonaysaba ahawoo camalkaagii soo socday wuu burayaa oo wuu jabayaa waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha mudilaadka loo yaqaano ee soomka jabiya marka qofku waa inuu kala garto wixii soomka jabinaya iyo wixii aan jabinaynin iyo wixii sunno ah iyo wixii falala waxaynu arki doonaa waxyaabo dadka qaarkood ay dareemaan ama ay u maleeyaan inuu soomka ka jabinayo laakiin aanan waxba yeelaynin cashar iyo cadba waa la yaryaraystaa si aan loogu merganine maanta 8 qodob oo cagafta burisa ama cagafta dumisa soomka 8daasaad liqaysaa insha allahu tacaala waanaad ka ilaalinaysaa soomka wixii kale aan waxba yeelaynin iyo sunnayaashiisana duruusta dambe aynu ku qaadan doonaa insha allahu wahada ma aquluhu waastaqfiru llah aynu isula soo ducayn oo dadka walaalihiina meel walba jooga marka u ducaysaan idinkaa ducaysan qofka walaalkii oo maqan u duceeyay buu nebigu yihi ila qofka soomanay duca la aqbalaa buu leeyahay markuu sooman yahay markuu afurayaba malag ba agtaagana wuxuu leeyahay ilaahay ducada ha ka aqbala adiguna intaad walaalkaa ugu ducaysay in la eg baad leedahay marka taasina waa fursad iyo jaanis hadday tahay qoladan iclaamka wax inaga baahinaysa iyo inaga dhammaanteen iyo dadkeenna maqan iyo ummadda islaamka ee dhibku haysta iyo macnaa hankeenu yuu yaraanin keligii haanlaha noqonin adiguna hantaada qura ha ku shubanin ducada dadkoo dhan wada gaadhsiin wax lacagoo kaaga baxaysaa ma jirtee waa erayo kooban oo ikhlaas wato ilaahay aynu la hor fadhiisanno marka aynu isu soo burburno ducada jazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان